waayahay hub ay leedahay dowladda Soomaaliya oo u soo socday Muqdisho Puntland ay qabatay arrintaas ka war wasiirka gaashaandhigga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa Muqdisho uga qayb galay furitaanka shirka wasiirada gaashaandhigga dalalka ku jira ciidamada hoggaanka ah ee Afrikada Bari ayaa ka xumaaday su'aal laga weydiiyay markabkii hubka waday ee shalay tay gacanta ku dhigtay ciidamada dowlad goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi oo ka soo baxay hoolka shirka ayaa hadal kooban siinayay warbaahinta isagoona ugu horeynba ka warbixiyay muhiimadda uu shirkan u leeyahay Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay Soomaaliya ay martigelinaysa shirkan laguna qabtay magaalada Muqdisho taasoo uu tilmaamay in ay geliyeen dadaal xooggan. Shirku waa muhiim runtii 5 maalmood ayuu socon doonaa, maalintii ugu dambeysana waa la soo qatimi doonaa, waana markii koowaad ee Soomaaliya lagu qabtay ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. Intaasi kadib wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa mid ka mid ah wariyaasha ku sugan goobta su'aalo uu ka weydiiyay hubka ay qabsatay Puntland isagoona ka xumaaday su'aashaasi waxa uuna gebi ahaanba isaga baxay goobta uu kula hadlayay warbaahinta. Muuqaal kooban oo si weyn lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya Fiqi oo careysan isla markaana diidayay inuu wax jawaab ah ka bixiyo markabkani hubka Puntland gacanta u galay. Muuqaal kooban oo si weyn baraha bulshada u haysta ayaa muujinaya in Axmed Macalin Fiqi uu ka carooday su'aasha la weydiiyay uu diidanay inuu wax jawaab ah ka bixiyo markab oo gacanta u galay maamulka Puntland kaas oo khilaaf weyn ka dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Puntland. Markabkani ayaa waxa iska leh dowladda Turkiga waxa uu ka socday dhanka iyo magaalada caasimad markabkan ayaa waxa iska leh dowladda Turkiga waxa uu ku socday magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas uu geyn rabay hubkan iyo gaadiidka gaashaaman ee dowladda federaalka Soomaaliya ku socday. Puntland ayaa soo barigtay markabkani ayaa sheegay inay weli ay ku hayaan baaritaan dheeri ah waxaana saakal la geeyay dekedda weyn ee magaalada Boosaaso. Sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in markabkani uu yahay markab weyn oo markii horeba cilada weyn soo wajahday loona caawinayay sida ay muujinayaan sawirro lagu baahiyay baraha bulshada. Dhacdadani ayaa si degdeg ah u noqotay qodob kale oo sii horanaya maamulka Puntland iyo weliba colaadda ka dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo noqonaysa mid dabka ugu sii shiday labada dhinacba.